أولاً السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جنالك أداونيسان والكرم أوفيشال فضلاً هذا نقوع سبتاي سبسكرايب هذا تورينو لجيتين لايك iyo share inta waxay inoo tahay dhiirigelin. maanta waxaan idin soo gudbin doonaa qodobo ku saabsan fadliga soonka maalinta Cashuura. dhageysi wacan walaalayaal, waxaan halkan idinku soo gudbinayaa kelimado kooban oo ku saabsan fadliga soonka maalinta 10aad ee bisha al-Muharram oo ah bisha koowaad ee sanadka hijriga oo aan hadda ku jirno. bisha al-Muharram waa bil barakeysan oo ku weyn Alle agtiisa, waxayna ka mid tahay afarta bilood ee loo yaqaan al-ashharul hurum, bilaa xurmada leh, sida qur'aanka ku xusan nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku sheegay sunnada. afarta bilood ee xurmada leh waxay kala yihiin Muharram, Dulqacda, Dulxajja iyo Rajab. fadliga soonka bisha al-Muharram guud ahaan waxaa ka soo arooray sunnada nabiga in ay fadli leedahay soonka sunnada ah oo la soomo bisha barakeysan ee al-Muharram, sida ku xusan xadiidkan: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. haddaba ayada oo fadligaas leh ayaa haddana waxaa ku dhex jirnaa maalinta lagu magacaabo Cashuura. waa maalinta 10aad ee bisha al-Muharram. waa maalintii uu Allah ka badbaadiyey Nabi Muuse calayhi salaam iyo qoomkiisii shartii Fircoon. marka shukri Allah dartiis ayaan u soomaynaa maalintaasna waxay ahayd maalintii 10aad ee bisha al-Muharram. faa'iidooyinka ay leedahay: waxaa fiican in muxtasib ah la soomo soonka maalinta Cashuura ku dayasho lagu dayanayo nabiga sallallahu alayhi wasallam. maalintan waxaa soomay nabiga iyo asxaabtiisa, waxaa loo kala hortay nabiga sallallahu alayhi wasallam. waxaa kaloo horta sameeyey misana soomay nabi muuse calayhi salaam. waa maalin fadli weyn leh. waxaa fiican in maalinta Cashuura maalin ka hor misana kadib la soomo, khilaaf la khilaafayo yahuudda oo ayagana soomaya maalinta. intaa ayaa ka soo aroortay fadliga maalinta Cashuura. wax kale oo fadli ah ama camal ah kale wanaagsan la sameeyo ma jirto. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. واليوم منك الهوى والقلب قد بان